بسم الله الرحمن الرحيم. سو دواada walaalahayga qaaliga ah. بسم الله الرحمن الرحيم. dhamaan waa salaamatihiin walaalahayga qaaliga ah. soo dhawaada mar walbaba oo la soo dhaweynaa insha Allah hadii la raado. waa walaalkiin saada qabyaaladiid oo rabo insha Allah inuu maaragtay waxyaabaha ay la wadaago soo batabal insha Allah hadii la raado. insha Allah guul Soomaaliya ha toosto, Soomaaliya ha midoodo, ilaahay maaragtay haraga qabto waxyaabaha dadka qalabkooda oo dhibaatada faafinayo iyo waxyaabaha qaarkood. waa mahadsantihiin. alxamdulillah waxaan raaligelin weyn ka bixinaa insha Allah hadii la raado. waxaan raaligelin weyn ka bixinaa insha Allah soo daahitaanka aan soo daahay iga raali noqda soo daahitaanka aan soo daahay oo waayo safar ayaan ahaa martiyaan ku ah magaaladan. alxamdulillah horta sii shargareeya bliis waa walaalkiin saada qabyaaladiid. okay شرقري بسم الله شرقري الحمد لله. ولكن عبد الرحمن إبراهيم وفي عنا هاي وما حصلت هاي وفي عنا الحمد لله. وعليكم السلام. ولا شيء إفراح سراجي سودو إن شاء الله أقول سودو ولا شيء سيت هاي أبوي وفي عنا هاي روح لي وهذا ما تبغى نسلام إن شاء الله. وأنا سلامي مرجع لنا اللف كان صقله لكن دنتا يا قصبتي مركز إن شاء الله بليس عد سواي حليش الجرايو عليك الصومالي معرفتي عليك الصومالي هل يوجد القفي والدنيا إن شاء الله عليك الصومالي معرفتي عليك أنتوا تشرو مرة والبا عليك أصلا يوجد عليك أصلا يقعد سوي عليك أصلا يقعد سوي سود هذا إن شاء الله وحنلو ذاك دونا حق والبو جرتو إن شاء الله دولار هذا حق والبو جرتو أيام معرفتي نلو ذاك دونا وما هالسنتي سود هذا إن شاء الله دولار هذا ولكن وحول بوا إن شاء الله وحول بوا نسع في دونا وحان فصوص دونا إن شاء الله لما ولا عليه سؤالها قفل بالسؤال قفتين ويديسو شرف أي جملتين آمين ولا شيء إلهي سفر كي ولوا سفر كي وحي رأيك حصل لايف كمرة سوكلي لها حفظة إيو وحيابه وناكس مرة أن جعلائنا نلو ذاقو وحيابه وحنا ملينا عدكي ومقشنا ملينا إن شاء الله ورجلوا عكارو الماء سودو هذا وأنا سودو هذا شرف أي جملتين ولا عليه غالي هذا أمريكا مرة والباب صور هذا إن شاء الله وأنا سيقول دونا هذه أتصور بدتان حكي هذول الله هذا إيش الجريء waxaan rabaa insha Allah walaalkii gaadir waa maasan tahay waa bilaabi doona insha Allah haduu la raado walaalkii Sahil Muhammad soo dhawo walaalkii aad u maasan tahay shargareenta ugu daara walaalihiin kala Soomaaliyeed gaarsiin insha Allah haduu la raado soo dhawaada walaalahayga soo dhawaada warqadahan aad ku diidaan waa warqada cadeena ورقلان وتا إن شاء الله هذول هذا وررك واكل ببيحنا هذول هذا واكل صار دونا إن شاء الله هذول هذا ولا لهيجا سود هذا إسقارسي بليس وأنا بري عطسي
insha allah guul insha allah guul hadduu ilaahay yidhaahdo wax walba way warjir waxaa la yidhi cakaaro uumaa bismillahi raxmaan raxiim waa anigoo ah walaalkiin saadaq qabyaaladiid maaragtay waa kulleeto baraha bulshada soomaaliyeed kulleeto waad igala socotaan mar walbaba wax walba waxay tahay insha allah mar walba waxaan rajeynaa inaan maaragtay mar walba aan xogteyda iyo xaaladeyda nii sheego insha allah bismillahi raxmaan raxiim horta aniga waa fiicanahay alxamdulilah waa nabad qabaa ilaahay wuu i badbaadiyey alxamdulilah ducadiina ayaa maaragtay mataqaana aan ku meel maray qof walbaba daacada qof walbaba ilaahay mataqaana ilaahay ujeedo waxa waaye maaragtay wax ka halaabaya habeeraate ma lahan marka insha allah soo dhawaada walaalahayga waxaa umaleynaa in badan isugeysin waa niga raaligelinaa insha allah hadduu la yidhaahdo waxaan joogaa maaragtay mooshinaan joogaa oo maaragtay martiyaan ku ahay waxaan mahad celinaa walaashay gabar soomaaliyeed oo maaragtay jeclaysatay inay maaragtay xaafadeeda aan marti ku ahay walaashay waa mahadsan tahay kulleeto waxaa waaye soomaalinimada waa wax muhiim ah waxaa jiro maalmahan baraha bulshada maaragtay waxyaabo badan oo mataqaanaa lisku hadal haayo aniga bismillahi raxmaan raxiim horta walaashay faa-iiso waa gabar soomaaliyeed waa gabar aad iyo aad loo yaqaano ummadda soomaaliyeedna maaragtay ka laheyd qayb muhiim ama qayb libaax ay ka laheyd waxaa waaye iga raalnada xoogaa haddii hadalka codka aan maaragtay aan isku dardaraayo waxa waaye wax walbaba alxamdulilah horta maanta aad iyo aad u fiicanahay oo wax dhiba ah oo maaragtay maanta ma qabo ilaahay maaragtay aad dhibka iga badbaadiyey oo ilaahay baa mahad iska leh iyo waxaan ilaahay maaragtay aan ku badbaaday daacadnimadeyda iyo wanaagayga iyo wax walbaba jiro insha allah hadduu ilahay ihahdo waxaan rabaa inaa waxyaabo badan aan kala qaado insha allah hadduu ilahay ihahdo soo dhawaada soo bata waxaan rabaa inaa soomaalida dhan ay ogaato wixii jiro oo ay tahay horta walaashay faa-iiso waa gabar soomaaliyeed oo dhibane faa-iiso ilaa hadda way dhiban tahay ilaahay caafiyo waxaan rajeynaa inay maaragtay mataqaana ay daawo doonto ama ay hadda i daawanayso walow aan maaragtay facebook aan friends aan kala helo mar walba ay shakada ka laabatay waxaa jirtay barnaamijyo ah in aan maaragtay walaashay aniga ayada bil iyo bar waxaa waaye islama xiriiri jirin oo maaragtay waxay ahayd gabar oo maaragtay dhibano ah oo aan maaragtay dhibkeeda iyo wax walbaba maaragtay ay ummadda soomaliya loo wada joogay horta waxaan kasoo bilaabi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo faa-iiso waxaan bartay oo aan maaragtay la xiriiray anigoo maaragtay raadinayo oo maaragtay baraha bulshada ay mar walbo mataqaanaa ay ka oy jirtay baraha bulshada maaragtay dhibkeeda ay maaragtay adduunka meel walba u qabsaday waxaa jirto faa-iiso inaan maaragtay ilaahay dartiis wax walba adduunka waxaa loo sameeyaa ilaahay subxaan qaadira ayaa maaragtay loo sameeyaa in ay mataqaana qofka markuu qalbigiisa wax walba oo daalacanayo ilaahay baa og maantana aniga qalbigii wax ku jiro ilaahay baa og subxaan qaadir oo cid kale aan ogeynin ma fahamteen soo dhawaada waxaa waaye asxaabta i daawanayso ilaa hadda waxay maroosaa 5,600 ay maroosaa waxaan rajeynaa inaad isgaarsiin doontiin aad shirgareed doontiin faa-iiso ana waa la xiriiray facebooka waxaan kula xiriiray ilaa waxaan raadin jiray bishii 7aad 2017 aan waxaan ku bilaabay raadin ah inaan maaragtay walaashay aan la dhibsado la xanuunsado waxaan go-aansaday inaan raadin ku bilaabo bishii 7aad ilaa maaragtay bishii 9aad oo aan walaashay la kulmay 2 November ayaa la kulmay waxaa dhacday inaan maaragtay facebook mar walbaba insha allah waa soo bandhigi doonaa waa arki doontiin messengerka aan kala xiriiri jiray oo aan hadalo aan qori jiray oo aan dhihi jiray walaashay faa-iiso waxaan u baahanahay inaan ku caawiyo wiil soomaaliyeed ahay waxaan joogaa waddanka Itaaliya waxaan u baahanahay dhibkaaga maaragtay inaan kula qeybsado si soomaalinimo iyo maaragtay dhalinyarnimo ku jirto iyo bil-aadnimo inaan kuga caawiyo faa-iiso 2 bil telefonka waxaa waaye way igu dhegeysan jirtay oo maaragtay 2 bil telefonkeeda mataqaanaa ma ii suurtageli jirin in aan la xiriiro ayadoo maaragtay teleefanada maaragtay igu dumi jirtay teleefanada ay maaragtay markaan la hadlo 2 sikin aan la hadlo
waxay dhihi jirtay walaalkii macaan ma taqaanaa waa mashquulsanahay ama mar walba ii calo dilici jirtay waxay dhihi jirtay abo qubeesa lii wadaa abo qorka waa lii xambaarowa yani calaacal iyo maaragtay waxyaabo oo maaragtay aniga qalbigayga dhaawici jiray mar walba marka waan u dulqaadan jiray mar walba wax wanaag ah kadib waxaa dhacday in aan mataqaanaa 2 November aan la xiriiro gabadha walaashay Faiza waxaan ka ballan qaaday waxaa jirto maamadeeda Faizo oo aan maaragtay ayadoo Kenya joogto aan la xiriiray waxaan ku yiri walaashay Faizo waxaan u baahanahay maaragtay in aan ku caawiyo waan xasuustaa waxaa ila soo xiriirsiiyey wiil ay isku fiican yihiin oo maaragtay cala xabad shiina la dhaho oo aniga aan isku xaafadnahay ayaa wuxuu i siiyey WhatsApp-ka ayaa maaragtay kala xiriiray kadib waxaa dhacday habeenaha kamid ah markay ahayd 8 saac habeenimo 9 saac habeenimo ku dhawaad meelahaas ay faraaqaha ay lahayd ayaan la xiriiray Faizana waxay iga codsatay maaragtay mataqaanaa inaan been aan u sheegaynin waxaan ku yiri aniga Faizo walaashay macaan been kuma sheegayay waxaan ahaa wiil Soomaaliyeed wiil wadani ah wiil jecel dalkiisa iyo dadkiisa waxaan rabaa inaan ku caawiyo Ilaahay dartiisa subxaanahu qaadira waa Ilaahay baa idaalacanayo mar jeceli inaan wax been aan sheegi doono ama aan sheego Ilaahay baa idaalacanayo Faizo waxaan dhahay walaashay macaan waxaan u baahanahay inaan Ilaahay dartiisa ku caawiyo Ilaahay dartiisa wax ka weyn ma lahan waxaan rabaa inaan ku caawiyo maaragtay bini'aadnimo adduunka waxa ugu horeyso la isku insaxaan falo oo bini'aadnimo la isku caawiyo waxaan ku yiri walaashay bini'aadnimada ayaan rabaa inaan kugu caawiyo haddii bini'aadnimo laga soo tago waxaan rabaa inaan kugu caawiyo Soomaalnimo waxaan rabaa walaashay Faiza inaan hadana aan kugu caawiyo dhalinyarnimo aan kugu istaago Faiza waqtigeeda way suurtagali weysay way aamin weysay xitaa hooyadan la hadlay ay igu dhiibtay markaas waxay u dhahday waa xasuustaa waxay u dhahday walaalkay Saadar kuma aaminayay mana ku aamini kari waxay dhahday adigu wiil yar ah oo ma aragtay oo sidaan u yaala oo timo badna ah oo sidaan camal ah kuma aamini kari waxay dhahday waxay ii qabo weysay dawlad Soomaaliyeed waxay ii qabo weysay ma aragtay siyaasiyiin Soomaaliyeed waxay ii qabo waayeen dad Soomaaliyeed oo hay'ado iyo adduunka socdo adiga ima qaba kartid waxaan ku yiri walaashay macaanay tala saaro Ilaahay tala saaraan ku yiri aniga waxna ma awoodi waxaan deganahay wadanka Itaaliya nolosha Talyaaniga waa dareemi kartiin xaalkeeda aad u xun yahay xagga dhalinyarada waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah oo Talyaaniga iska degan kana shaqeysto markuu waxna helano ku noolaado markuu wax waayna maaragtay iska waxeeyo Faizo way aamin weysay waxaa dhacday inay mataqaanaa ay ugu dhahdo maaragtay hooyadan ku dhiibaa hooy xawlul way maqlaysaa fiidiyogana way daawo doontaa insha Allah hadii la yiraahdo hooyadii la hadlay hooyadii waxaa dhacday xitaa inaan hooyo waxaan soo xasuustay hooyadii fiidiyo waxa jirto ay maaragtay qeyroonaysa oo aan aad maaragtay la murugooday oo aan aad ummadda Soomaaliyeed maaragtay ka murugootay hooyadii markaan hadlay xitaa hooyadii waa u ilmeeyay hooy waxaan dhahay maaragtay wiil daacadaan ahay hooy way bar doontaa waxaan rabaa inaan gabadhaada dhibka la qaybsado waxaan rabaa inaan waxa aan qabo kara aan qabto waxaan u baahanahay aniga lacag ma haystaan ku yiri hanti mali aan ku yiri waxna ma haysti laakiin waxa ah wiil daacada oo wadani ah oo calankiisa Soomaaliyeed jecel walaashay Soomaaliyeed waxaan dhahay waa dareemi kartaa ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed ee ka tirsaneed waxaan ka dhaarciyay hooy waxaan ku yiri gabadhaada waxay difaacaysaa ku yiri dalkayga difaacaysay dadkaygana maaragtay ay difaaci jirtay marka waxaan ku yiri waa inaan anina maaragtay dhalinyarnimo aan fikir aan wadanka Itaaliya aan ku keeni karo waa inaan maaragtay aan ku keena walaashay Faizana aan wax walba aan la qaybsadaa waxaa jirto maaragtay waxyaabo oo hadda Facebook oo lala wareegayo oo waxyaabo oo la faafinayo waxaan rabaa inaan waxyaabaha qodobada aan kala saaro midda horta waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah hadii la yiraahdo Faiza lacag iga qaadatay subhanallah la ilaha illa Allah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam calankaas Soomaaliyeed Faiza wax u qabtay maanta calankaas Soomaaliyeed ayaa Faiza wax u qabtay calankaas Soomaaliyeed Faiza maanta u qabtay Ilaahay dartiis Ilaahay subhanahu qaadira maaragtay ayaa idaalacanayo Faiza waa gabar walaashay aad dhibaataysan qof walba bil aadan Soomaaliyeed ayaa og Faiza inay mataqaana ay wax dhiman Faiza waxaan ku yiri maanta asbarnaynay ay ogaatay in aan process barnaamij aan u furi doono ina walaashay Faiza aan u furi doono maalintii ogaatay ay aamintay oo aan todobri aan la shakeystay waxaan ku yiri walaalay macaanay
waa dareemi karaa dowladda soomaaliya meeshaan ku keentay dowladda soomaaliya aniga waxyaabaha naga dhexeeyo meel iga dhig so aniga waxaan ahaa wadani soomaaliyeed calankaas soomaaliyeed ayaan ku faanaa waxaan ku yidhi walaali macaani meel iga dhig wax dowladda soomaaliya ay ka tahay dowladda soomaaliya waa dowladdeeda waxaan ogahaan ku yidhi waxaan ku bartay facebook social mediaha run ahaantii soomaalida dhammaan meel walba ay joogto waxaa jiro waxyaabo oo maaragtay ay ogyihiin oo indhaheeda aan indhaha laga dabooli karin faa-iiso waa dareemi kartiin waxaan ku bartay oo ilaahay subxaana qaadir ilaahay baa idalacanayo ilaahay baa aragtay ay idalacanayo faa-iiso waxaan ku bartay weriye salmaan jamaal samafale weriye salmaan jamaal waa wada taqaanaan kulleeto bulshada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dhammaanba waa dareemi kartiin weriye salmaan jamaal wuxuu yahay iyo wuxuu gudo iyo wax walba ay tahay aniga salmaan aniga ma aqaani weligii lama kulmin weligii lama hadlin markaan istanbul tegin xitaa wallahi inaan la kulmin xitaa waxaan arki jiray asagoo wadada ma marayo shaqada aan u tegay istanbul waxa waaye mid ah in aan waajibaadkay guto bis keliya ayay ahayd okay walaalkii salmaan jamaal waan u mahad celinayaa walaal maanta waxaan dhigi karaa howsha adiga aad qabatay aada bilowday faa-iiso wadani facebooka ku qorta adiga ma fahamtee waan dareemi karaa faa-iiso ayadoo dhibaataysan oo ma aragta gooma ku jirto nolosheeda laga sabri doono ayaa u kacday aan nolosheeda ilaahay subxaana qaadir ayaa badbaadiyey laakiin qofka aan faa-iiso wadani aan ku bartay waxa waaye salmaan weriyo salmaan jamaal saciid waaye aniga man aqaanin oo waxa waaye waa dareemi kartiin maaragtay dhibaatadii kusoo bilaabatay faa-iiso yaa yaqaani faa-iiso turkiga ayadoo joogto faa-iida ayadoo turkiga faa-iida ayadoo turki joogto weriye salmaan jamaal ayaa bar aniga si kale ima ahan ima barin waxaan arkay asigoo la dhibaatoonaayo oo dhibka iyo insha allah waxaan noqday jaadib baan kusana laan iga noqday salmaan jamaal ayaa i baray salmaan jamaal oo ma aragtay mataqaana aan ku arkay oo ma aragtay asigoo caawinaya oo xitaa waan xasuustaa kursiga ay maaragtay ku soco jirtay oo u naadinaya u dhahaayo walaalayaalo caawiya walaalayaalo waa gabar dhibaataysan oo walaashiin ah waa gabar maanta mataqaana niga mudan wax walbaba marka alora markii ay noqotay in weriye salmaan jamaal oo aan arkay ayaan u damqan jiray waxna kama qaban jirin oo maalintaas aan markaas ma degnin waddanka talyaaniga oo waxaan ku noolaa waddanka sweden aan ku noolaa oo aan degnaa tabori dhammaan asxaabta reer sweden xitaa tabori way yaqaanaan aniga kulleetobo maaragtay wax walbo idil oo maaragtay soomaalida ay ku jirto maanta maaragtay waan u xeegi doonaa waxay tahay okay faa-iiso waxay dhahday waxaan dhahay walaashii macaan ilaahay dartiis ayaan ku caawinaa maanta iyo soomaalnimo iyo dhalinyarada aan ku caawinaa waxaan ku yidhi waxaa jira ku yidhi broseska aan ku samayn doono waxaa ku baxo lacagaa ku baxan aniga waxaan ku dhahay sanadkii hore buunta hoosteeda nool xitaa videogeyga waa daawo kartin anoo buunta hoosteeda ku nool ay jirtay oo aan gabadha anoo buunta hoosteeda joogo aan u damqan jiray waxaa dhacday in aan faa-iiso aniga aan dhaho walaashii ani lacag ma haystay wax lacaga oo aan haysto maanta habeeraati ma lahan waxaan kugu caawi doonaa aan ku yidhi wax walbo broseska aniga aan inta kugu keeni doono in aniga aan mar walbaba aan u samayn doono aan kuu samayn doono faa-iiso waa dareemi kartiin si haddaay facebook liveka ee soo gashay ani kulleeto ma dhihay iga raali naqda dad baa isoo wacaya wareerinaya walaashay waxaan ku yidhi aniga waxna kuma qaban kari walaashay waxaan ku yidhi aniga wax kuma qaban kari laakiin bursaska ayaan kuu samayn karaa marka waxaan ku dhaha walaali macaan markaa bursaska samaynayo waxaa baxaayo qarashkaas ada iska bixi iga dhaali naqda hadalka waa qiiroosanahay waxyaabo aan arkay ay ka shekeynaysa adaa arkayay laakiin ilaahaydii ayada iyo subxaana qaadir mataqaana ayay u taalaa waa qof dhibaataysan ayadaa maaragtay hal eray oo been ah hadday sheegto ayadaa dhib ku qabtaa walaashay ayadaa dhib ku qabtaa waa dhibane oo maaragtay iska dhibaataysan oo dhib badan maaragtay ayadaa dhib ku qabi doonta insha allah hadduu ilaah iraahdo
walaashay waxaan ku yidhi aniga lacag kaama rebi lacag kaama qaadanayay intaasoo lacaga waxay sheegatay hadda lacag ayda sheegatay laakiin waxa qof walba bini aadam Soomaaliyeed ayaa og maanta in aan faa'iido lacag aan ka qaadanin waxaan beeninayaa in aan faa'iido lacag ka qaadanin waxaan beeninayaa in aan faa'iido lacag ka qaadanin ilaahay subxaan qaadir ayaa maqlaay cid kale oo imaqlayso maanta habeeraatay ma jirto cid aan wax ugu baahanaa ma jirto social media qof walba wuxuu sheegay asigay u taalaa dadka wanaaga jiro dadka jecel shacabkiga Soomaaliyeed mar walba jecelahay mana dhici doonto inaan maaragtay niyad iyo waxyaabo aan kala kulmo okay faa'iido waxaan ku dhahay walaashay macaan marrabi in aan maaragtay aan lacag ka qaato aniga waxaan dhahay waxaan u sii balan qaaday in aan maaragtay walaashay waxaan dhahay waxaan u sii balan qaaday in aan maaragtay xitaa nolosheeda aan u istaajinayo nolosheeda inaan u istaajinayo oo maaragtay oo aan wax walba oo maaragtay balan qaado aan oofi doono waxaan ku yiri waxbarashadeedan kaaga soo degi doona waxaan ku yiri shaqadeedan kaaga soo degi doona aan ku yiri wax walba waxa ka horyaa ku adiga taas u dhibaataysan marka waxaan ku yiri walaal macaane processkaaga lacag ku bixayso adiga iska bixi wax walba lacag kugu baxo transportka oo aniga aan tariimo ku raacayo transportka ama maaragtay diyaarad aan ku raacayo adiga aan kugu imaanayo waa ina adiga iska bixisid processka waxa jirto waa dareemka reer Italia waxa jirto lacag la bixiyo oo prefecturada rabto waxa la yiraahdaa marka di bolo laha lacagaas aan bixiyo lacagaasna waxay gaaraysaa adiga waa 62 euro waa 62 euro lacag camal ma ahan oo aan maaragtay aan ku sameeyay waxa jiro certificate residence waxa la xataa jirto oo marka bolada la saaraa jirto oo aan ku sameeyay walaashay meena dhicin mataqaanaa in aan maaragtay aan hadalkayga oo ballanqaadkayga aan u beeniyo waxaan dhahay dhowr ballanqaad ayaa lagu soo ballan qaaday waa la adahay laakiin ballanqaadkayga waa mid socod doono oo aan ka mid dhal doono ilaa aan Jarmalka u keeno waxay dhahday Soomaalida waxaan rabaa aqli inay isweydiisaan inay isweydiistaan loo baahan yahay okay waxay dhahday leenka way iga gatay 10 kun oo iga siistay leen 10 kun ma joogo 13 kun oo jooga waxay dhahday mataqaanaa wuu iqiyaamay iyo waxyaabo lamida wax walba oo jiro insha Allah waxa waaye step ayaan u sheegi doonaa hal noqdo waa qeyrasanahay maanta safar ku jiro inaan soo galo waxa Facebook live-ka laakiin way ina qaweysay wax walba waxay tahay walaashay waxaan dhahay wax lacag kaama rabay wadanka Turkiga uu tagay oo aan la joogay aan kulo noolaa dadka Turkiga joogo Istanbul joogo aad iyo yaqaanaan dhalinyarada Istanbul oo mar walba ilaahay dartiis ugu soo dhaweysay oo xogteeda waxaan rajayn doonaa wax walba ana ahay inay sheegi doonaan hadduu ilaahay yiraahdo walaashay waxaan dhahay bursaska lacag ku bixayso waxaan rabaa inaan hadalka soo gabagabeeyo oo xogaa aan soo koobo faa'iido waxaa ku baxday lacag gaarayso 4600 ayaa ku baxday faa'iida waxaan ugu baxday mataqaanaa aniga tariimka aan raacay Roma aaday waa ka imaanay transport baraan galay diyaaradan u raacay warqadaha aan sameynay Turkiga process ka sameeyay waxa lagu xujiyay Turkiga warqado oo process lagu xujiyay ida iyo safarkeeda qof oo waxa waa deeshin ah oo maaragtay oo handicap aheed oo xanuunsan si og tihiin gaariga inuu raaco taxi raaci jirnay wax walba sameey jirnay waxa ahayn 5 qofood ahayn 5 qofood fiidooga way daawan doontaa waxa kamid ah walaalkeed la dhashay Cabdirashiid Cabdi kamid ahaa waxa kamid ahaa gabar Faadimo Ismaan laho waxa qadka ku jiro oo had idaawanayo waxa jiro Ilaahay khayr siiyo oo garab buuxisay maaragtay Saahil Maxamed wiilka la dhaho Saahil Maxamed xogteeda ayuu wax walba ku hayaa faa'iido 5 qofood transportkooda iyo socodkooda iyo maaragtay 3 bil wax ku soconayo waa dareemi kartaa lacagta keeni karto lacagta 4,000 ee naqatay 4,600 naqatay lacagta faa'iido ku baxday kadib waxa dhacday markaan soo bixirino safarka aan soo aadi rabnay ayaa maaragtay shopping sameys iyo baashaal iyo celebration ayda ay sameeysanayso iyo waxyaabo badan ayda dad u dadarsanayso iyo walaalaheed waxa jiro laba la dhalata walaalaha jiraan waxa la yiraahdaa Firdooso Cabdi Mahadal lahaa gabar Firdooso Ibrahim Cabdi Mahad inay tahay umaleena faa'iido ayay ku hooyo tahay Cabdiqadarna faa'iido maaragtay wuxuu ku yahay ku aabi iyo ku hooyo yahay walaalaheed lacag u tagtay wixii dhama ka baxay wixii naqatay adiga 6,000 marka waxay ka dhigatay 6,000 waxay ka dhigatay mataqaanaa waxay ku darsatay 2,000 ku darsatay 2,000 waxay dhahday subxaan Allah saadaq ayaa 8,000 ay qaateen
faa'iido waxay kala garan weysay lacagta ayada processkeeda ku baxay lacagta processkeeda ayada ku baxay iyo waxay kala garan weysay lacagta oo ani aan ka qaatay ya ilaahay baa idaalacanayo markii fiisada la helay faa'iido fiisada markaa la helay waxay dhahday $500 saadaqo ku soo adeego saahila ka marqaatiya faaduma ka marqaatiya faaduma sabana ka marqaatiya ilaahay noqomaya u jeeda $500 ay siisay faa'iido markii ugu horreysay lacag ay siiso shoobina ku soo gatay dharkii ugu yaraaday faa'iido si kale ugu dhaqantay